السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الرجي هرو وزيردي هراي مسؤولين تهرال كان كهذا باي دهدين ومناسبة دي تاريخه وأنا حفلة دي دو وناكسن وأنا أخلين لفدبر كان قنيسة مستقبل كصوص عدا تاريخ يدقالها دلك السومالي لان سيدي الله وضع الشاقي adduunyada dalkan ku dhaqan baynu ka mid nahay waxay u baahan yihiinna waynu u baahan nahay waxa ay wada wadaagaan adduunyada inteeda kalena waynu la wada wadaagnaa lagama maarmaan waxaa noqonaysa marka haddaynu reer somaliland nahay barnaamijyada aasaasiga ah ee nolosha bini aadmiga aasaasiga u ah ee qaran kastoo hore u maray aasaasi u ah inay innakana nolosheenna aasaasi u noqoto aynu aad iyo aada ugu dadaallo inaynu hawshaa marno barnaamijkaasi waxa weeye waa barnaamijka horumarka barnaamijkan horumarka warshaduhu qeyb badan bay kaga jiraan adduunyada sidii hadda raggii ay u sheegeen dalal badan baa jira aan waxna beerin waxaan la idhaahdo maxaanku dhahdaye macaadiintana aan lahayn noocyada kala duwan ee macaadiinta baatroolka iyo waxyaalaha aan lahayn waxaa la leeyahay dalalkaasi isticmaalaana ay kow ka tahay aan beera lahayn waxay isticmaalaan ay tahay warshadaha waxaa kaloo inoogu xigaa waxa weeye waxaan la idhaahdo food security-ga beeralayda in aynu beerahana aynu noqonno waxyaalaha aynu leenahayna waxaa ka mida xoolaha ka mida waxaa ka mida inaynu leenahay iyadana macaadiin fara badan waydan ogeydeen maalin dhaweyto sallaxley degmadeeda magaalo yaro u dhowo beriga ka xigta ceelkiiba 300-400 intaanu maraynin ayaa waxaa ka soo baxay waxa loo malaynayo ama lagu wada kalsoon yahay inay leedahay calaamadihii shidaalka oo dhan habeen dhaweyto waxaan weydiinaynay nin doctora oo engineer petroleum ka hor reer somaliland oo meel kale ka shaqeeya way dhacdaa buuhi meelaha dhow in wax laga helo oo ay calaamadahaasi soo baxaan intay tahay intay ku jiraysaa intay laag tahay waa wax cilmi iyo aqoon u baahan hadda wasaaradeenna macdantu muddo doora bay ku jirtay iyada iyo kambaniyayaal qandaraasay nagula galay barnaamijkaas sahaminta shidaalka hadda qoladii kambanigii ugu weynaa ee eriyada ugu weyn somaliland haystay ee shidaalkaa ku mashquulsanaa ee lahada ganeel energy hadda waxa ay istaageen in ay calaamadiyaan ceelkii u horreeyay taswalka ahaa marka mustaqbalkeennu markaa sidaasuu u ifayaayo uu wanaagsan yahay arrinkanina maanta wuxuu inoo markhaati furayaa inaynu warshadaheennii filaqsanaa inaynu isu ururino ciladihii hortaagnaana maxaanku dhahdaye waynu soo wada sheegnay dadka shicibkii iminka waxa uu marayaa in maxaanku dhahdaye haddaad iskaba lugeynayso buur marto in markiiba hareeraha la iska tago la dhahdo maxaad halkan u maraysaa adar waan lugeynayaa safar baan ahoo halkan aan maraya markaad ku tidhaahdo aan lagaa qancaynin wasaaradda howlaha guud waxaa loo asteeyey iminka waajibaadyadeyda dastooriga ah in ay iminka ka mid tahay in ay iyadu mas-uul dhulka ka tahay meeyarka magaaladu aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay inuu isaguna kala shaqeeyey oo wasaaradda maalgashiga ay kala shaqeeyeen dadkeenna waxaan jecelahay inaan u sheegno 3 shay cidiba ma yeelan karto waa buuraha waa dhulka jeexjeexyada ah waa togaga intaas qarankuunbaa yeelan kara marka waxaan jecelahay inaanay kusii habsaamine inaan sidan iminka maanta oo kale aan maalin dhow la odhanin maxaanku dhahdaye meel heblaayana qoladaasaa loo calaamadiyey meel heblaayana qolada kale arrinkaa kalea loo calaamadiyey inaynu inaku qayb ka qaadanno shicibkeennu barnaamijka horumarka dalka oo aanay carqalad ku noqon aanay
carqalad ku noqonin arrintani markaa waxay aad iyo aad isugu soo ururinaysaa waxay aad iyo aad inoogu soo dhaweynaysaa in aynu warshadaheenna oo mustaqbalkeenna qayb badan ka qaadanaya mashaakilaadkii yilana aynu xallilo ayagana aynu samayno barnaamijkii maxaanku dhahdaye ay hawshaas ay ku fuli lahayd cali waran cadde mid baanna qabaa oo waxa weeye dee warshadaha waxay u baahan tahay dadka maalqabeenka dalka ka ihi inay qayb ka qaataan warshadaha baanan baynu iminka leenahay qayb bay ka qaadanayaan baanan kale oo sida adduunyadu de maxaanku dhahday way ismaal gashataa way wada joogaan meel walba ay ka shaqeeyaan inay ayaan dhown baanan inoo yimaadaano oo nimankii lacagta lahaydba ay iyagu ku baaridade marka ay arkaan nin raggii warshadaha samaynayay oo baananna haysta oo baanankiina maalgelinayaan yaanay da idinka dhammaanine dalku xaq buu idinku leeyahay maxaanku dhahdaayey nimanka maalqabeenka ihi dalka ha maal gashadaan arrintii uu ka hadlay taliyaha waxaan leeyahay wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo dhulka dadka ganacsatada ah ama dadka maxaanku dhahdaye halkan eriyadan ka sheeganaya in ay arrimahoodii ay wax ka soo gashay dawladdu boobina mayso waxna ka qaadi mayso laakiin waxaas haddii ay hayaan wasiirka maalgashiga iyo wasiirka howlaha guud iyo wasiirka daakhiliga oo aniga ah ayay ula imanayaan dabadeedna waxooda waa la eegayaa xuquuqda ay leeyihiinna way helayaan wax dhibahoo dawladda ku degdegayso iyo waxay ka qaadaysaana ma jirto laakiin waxaa aasaasi ah inaynu arrintan aynu xal u helno waynu la soconnaa berbera wuu dhammaaday kankiisii oo aan heer gobol berbera ahayn oo ah industrial soonkii heer qaran oo kan aadna uga sii weyn wuu ka bilaabay maxaanku dhahdaye berbera fayskiisii hore wuu dhammaaday fayskiisii labaad baa iminka maxaanku dhahdaye lagu jirayaa gobollada intooda badanna iyada oo ay ku xidhan tahay master baraankii واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa